Bismillah, alxamdulilah. Waxaynu halkan ku qaadanaa casharkeeni sideedaad oo insha allah aynu ka hadlano relationship between spring constant and angular frequency. Xidhiidhka u dhexeeya waxaa la yidhaahdo spring constant iyo angular frequency. Marka labada aynu doonayno inaynu qaadano xidhiidhka u dhexeeya, mid waa spring constant oo k ahaa, midna waa angular frequency-ga oo omega ahaa, oo mararka qaarna aynu u naqaanay angular velocity. Marka waxaa jirtay qaacidooyin aynu hore usoo qaadanay imise meelood buu keedu inoogu jiray. Markaynu barrier-ka raadinayno waa inaga nidhi waa 2 by square root m divided by k baa halkaa ku jirtay. Frequency-ga way ku jirtay 1/2 by radical k divided by m way noogu jirtay. Waxaynu soo qaadanay angular frequency-ga halkuu inoogu jiray. Angular frequency-ga waxaynu kusoo qaadanay barrier-ka oo inoo leegaa 2 by divided by angular frequency. Waxaynu kusoo qaadanay frequency-ga oo inoo leegaa angular frequency divided by 2 by. Marka labada qaacide ugu dambeeyayna waynu kusoo qaadanay mid walba. Marka meelahaas oo dhan bay inoogu wada jireen. Macnaha meelaha aynu kala soo dhex baxaynaa meelo kale maaha, waa ina hanuun. Marka waxaynu leenahay the period of a spring in simple harmonic motion is found. Period-ka spring-ka ku jira simple harmonic motion-ka waxaa lagu helaa baynu hore usoo nidhi 2 by radical m divided by k. Sidoo kale period-ka waxaynu ku aragnay inay tahay 2 by divided by angular velocity. Marka maanta angular frequency baynu ugu yeedhanaa. Waxaan idinku yidhi waa isku mid angular velocity iyo angular frequency. Marka uu period-ka inta badan marka uu period-ka xidhiidhka la leeyahayna angular velocity baa la yidhahdaa. Marka uu frequency-ga xidhiidhka la leeyahayna angular frequency baa la yidhahdaa. Laakiin waa isku mid. Isku qiimana way soo baxayaan, isku unitna wey. Marka alxaasil mar haddii 2 by over omega inoo leeg tahay t, 2 by radical m over k na ay leeg tahay t, labadoodana isleeg. Marka waxaan leenahay qaacidada weyn oo 2 by radical m divided by k waxay leeg tahay qaacidadan ama qaybtan oo ah 2 by divided by omega. Marka in 2 by iyo 2 by way iskoosanayaan labadoodaasi. Meesha waxaa inoo kusoo hadhaya radical m divided by k inay leegtahay 1 divided by omega. Marka omega oo keliya markaad helayso kala rogoon, omega dusha mari 1-kana hoosta soo mari, tanna keeda dusha mari, m-tana hoosta soo mari. Simply marka omega waxay ku leegtahay square root k divided by m. Wadda labada aynu soo mari karnaa ma jirta? Waddada labaad aynu soo mari karnaa waxa weeye hore waxaynu usoo aragnay markaynu dhiganaynay frequency-ga waxaa lagu helaa 1 divided by 2 by square root k divided by m. Taasi formulada hore aynu soo dhiganay bay ahayd. Waxaynu markaa halkaa aynu kala soo dhex baxnay markaynu keeda subject of formulada ka dhiganay k inay noo leeg tahay 2 by f oo la isku weeray oo lagu dhuftay mass. Waa qaacidada aan idinku lahaa mar walba soo drive garaysta ma xasuusan kartaane. Marka keeda la raadinaya bay qaacidadaasi inoo jirtaa. Wax kaloo aynu previous lessons ama casharada qaybihii ugu dambeeyay aynu ku qaadanay in f in omega ay inoo leegay 2 by f. Marka 2 by f omega ku leegtay. Marka halka ay 2 by f ku taalo omega ku bedelo, keedii markaa waxay ku noqonaysaa omega square baa saaran hayloobin times m. Marka si aad omega u hesho dhinac kasta mass baad u qaybin kartaa, xaggana m baad u qaybin kartaa, labadaasi ay iskoostaan. Omega square markaa omega square waxay inoo leegtahay k divided by m, k divided by m. Marka si aad omega oo keliya u hesho dhinacana root-ka ka saar, dhinacana root-ka ka saar. Marka square iyo square root bay iskoosanaya. Taasi waxay inoo muujinaysaa omega inay inoo leegtahay square root k divided by m. Marka angular velocity ama angular frequency intaasay markaa inoo soo baxaysaa. Waa square root k divided by m. Wataa marka qaacidaynu u dan leenahay marka waa qaacidadaas. Waa isla iyadii uun. Marka labada wadaba waad kusoo drive garayn kartaa. Dhinacana waad kaga iman kartaa, xaggan kalena waad kaga iman karaysaa. Okay? Marka inaha aynu haysano dabcan omega
waxay maanta inoogu taagan tahay angular frequency, halbeeguna waa radians per second, keeduna dabcan waa spring constant ama spring stiffness waana newton per meter, mtuna waa mass oo in kilogram ah. marka intaa qaacidada ama formulada markaynu u baahno waynu adeegsanaynaa. okay, tusaalayaasha aynu u gallo marka examples way tusaalahan marka wuxuuna leeyahay ama tusaalaha koowaad, what is the angular frequency of a spring of mass 0.2 kilogram if the force constant of the spring is 300 newton per meter? waa maxay angular frequency-gu? marka angular frequency marka laynaga doonayo waa omega laynaga rabaa. haddii angular frequency-ga spring masska ku xidhan, marka masski baa lagu siiyey, dabcan kilogramna uu ku yahay, wax bedelaada kaagama baahna. haddii spring constant waa keedii ayaa 300 newton. marka waxaa laynaga doonayaa angular frequency. dabcan qaacidada kooban baynu xasuusnaanaa k divided by m oo root-ka laga saaray. okay, aynu gifanka si nidaamsan u qoranno. waxaan leenahay waxyaabaa layna siiyey waxaa ka mid ah mass oo 0.2 kilogram. waxaa kaloo aynu haysanaa force constant ama keedii oo 300 newton ah. waxaa laynaga doonayaa angular frequency. angular frequency waxaynu ku helaynaa markaa square root k divided by m. keediina waynu haysanaa, mna waynu haysanaa, labadaas unbaad ku bedelanaysaa. markaa 300 0.2 u qaybi waa 1500, dibadna root-ka ka saar waa 38.7 radians per second. marka halbeega waad ilaalinaysaa. su-aasha labaad ama example-ka labaad waxaa lagu yidhi 200 gram block 200 gram block connected to a light spring. block 200 gram aa lagu xidhay spring yaro fudud, for which the force constant is 5 newton per meter, kaasoo keedu ama constant ku yeela 5 newton per minute, is free to oscillate on a horizontal frictionless surface. maskeeri si xora ayuu oscillation u sameynayaa surface-ka horizontal-ka ah. the block is displaced 5 cm from equilibrium and released from rest. inta 5 cm saa loo jiiday ayaa la sii daayay. fine period kale naga doonaya. marka su-aashan su-aalo dhowra ayaa layna weydiin kari lahaa, laakiin in short waxaa lagu soo gaabsaday in layna weydiiyo period. marka si caadiya markaynu u eegayno waxyaabaha aynu haysano waxaa kow ka ah mass oo 200 grama. marka gram ku shaqeynayna kilogram baynu u bedelaynaa, 1000 baa loo qaybinaya, markaasaa ayuu ku noqonaya 0.2 kilogram. waxaynu haysanaa keedii oo 5 newton per meter ah. marka dabcan point baa 500 ha u qaadanina, waa 5 point baa halka yaala waa 5.00, marka waa 5 un. marka keediina waa 5 newton per meter. waxaa laynaga doonayaa period. marka horeba waynu usoo aragnay tan oo kale oo qaacida ahaan periodka waxaynu ku heli jirnay 2 by square root m divided by k. mar haddaynu m iyo k haysano formuladan aynugu habboon. marka si caadiya markaynu uga shaqaynayno dabcan waa 2 by square root 0.2 divided by 5. labada gudaha haddaad isku qaybiso waa 0.04, root-ka markaad ka saartana waa 0.2, 2 by-gina waad ku dhufanaysaa. marka byda 3.14 baad u bedelaysaa. marka byda markaad 3.14 u bedesho ayaad saddexdaba isku dhufato, insha allah waxaad heli doontaa 1.256 second. taas waa nidaam aynu mari karno. nidaamka labaad ee aynu mari karnaa waxa weeye mar haddaynu haysano m iyo k. hadda waaniga idinku lahaa periodka waxaad ku heli kartaa 2 by divided by angular velocity ama frequency. laakiin maxaad u baahan tahay inaad angular frequency-ga horta gaar u hesho. oo maxaynu dhahnaa angular frequency-guna waa square root k divided by m. marka horta angular frequency-ga gaarkiisa u hel. markaad keedii amta isu qabsad root-ka ka saartay la adigan labadiiba haystee omega-d heli. omega markaad heshana period-kaad heli adoo isticmaalaya 2 by divided by angular frequency. marka bal hadda taana haddaynu tijaabino waxaynu leenahay iyada laftarkeeda markaynu taa hore ka nimaadno horta qiimaha waynaynu helaa, qiimaha waynaynu gaarnaa mar walba. okay, waxaynu leenahay markaa first let's find angular frequency. waa stepka labaad ee aynu raacayno. marka hore aynu helo angular frequency omega weeye. marka omega markaa waa square root k divided by m. dabcan kna waynagan haysanaa oo waa 5, mna waynagan haysanaa waa 0.2. marka labadooda markaynu isu qaybino
waxay noo soo bixi doonaa 5 radian per second inta labada la isu qaybiyo ruutka laga saaro 5 baa kusoo bixi doona waaye mar haddaynu intaa haysano what next maxay noogu xigaya marka waxay noogu xigaya waxaynu haysanaa omega periodki baynu helaynaa periodka maxaa lagu helayaa waxaa lagu helayaa 2 by divided by omega marka taasaa ay inoo fududanayso to find t si loo helo t marka waxaan leenahay period maadaama inoo leeyahay 2 by divided by omega omegana waynu helayo waa 5 taas marka waxay noo leegtahay 2 by divided by 5 bydana 3.14 baad ku bedeli doontaa marka waa 2 times 3.14 divided by 5 sidaa marka waxaad ku helaysaa markaad taa ku dhufateed soo qaybisa 1.256 second oo intii aynu hore u haysanaya marka waxba iskama bedelayaan resultka ama natiijada laakiin labada wada labaduba way ku fudud yihiin qofku markaa tii uu xasuusan karo ama u fudud ayuunbay tahay inuu raaco marka halkaa ayaynu casharkeennan qaybtaa aynu ku deynaynaa asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu